xaawo cismaan oo loo yaqaanay xaawo taako ayaa ka mid ah dadka u soo halgamay madax banaanida wadankan waxaana ay baal dahab ah kaga jirtaa taariikhda halgamayaasha Soomaaliyeed waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1920 waxaana lagu yaqaanay inay ahayd qof leh karti iyo geesinimo adag oo ay kaga soo horjeeday gumaystaha halgama xaawo taako waxay aad ugu soo caanbaxday ka hortagga hadafyada ay wateen gumaystihii haystay wadanka iyo inay si cad u soo bandhigto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in la helo xurriyad waxay ka mid ahayd dadka sida weyn u taageeray halgankii ay wateen ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ee la dhisay sanadkii 1943 xaawo cismaan xaawo taako waxay ka qayb qaadatay isku soo baxyo badan oo dadka Soomaaliyeed ay sameeyeen kuwaasi oo lagu doonayay in Soomaaliya ay noqoto wadan madax bannaan sanadkii 1948 xaawo taako waxay ka qayb gashay banaanbixii ugu dambeeyay nolosheeda kaasoo ay gumaysiga si naxariis la'aan ah ay ugu fureen rasaas dadkii rayidka ahaa ee banaanbaxayay iyadoo halkaasi ay ku geeriyootay halgame xaawo taako inkastoo nolosha halgame xaawo intaasi ku dhamaatay ayaa haddana wanaagii ay u sameysay dalkan waxaanan ilaawin dawladii dhexe ee dalka taasoo dhistay taalada caanka ah ee ku taala magaalada Muqdisho ee xaawo taako sidoo kale waxaa jira goobo wax lagu barto iyo xaafado dalka ka mid ah oo loogu magac daray xaawo taako iyadoo la doonayo in niyadda dadka Soomaaliyeed aysan ka go'in halgankeedii ويكبر بعد كل حدا